casharkii noogu dambeeyay waxa picture in picture oo inaga go'ay marka picture in picture waa kolba halka aad joogto ayaad imika picture in picture waa sawirkii marka hadda imika audio dhahdo audio waa soo baxaya haddaan clip ay taas soo baxaysa laakiin picture in picture waa faanta hadda waa goobta aad ka arkayso sawirka qaabkan sawirkaaga iyo waxa aad ku edit gareynayso Camtasia hadda waxa inoo hadhay recording saddex nooc baad ugu duubi kartaa mar codka oo kaliya tala duba voice narration baa la dhahaa muxaadara lagu soo duub sheekh baa lagu ka soo duub voice narration ka click siinaysa markaas waa kan codka ku tusay intaas oo cod ku duubi karaysa saacaduna ma baxadidna waa kulba intay socoto weeyaan kadib markaas aad start baa leedahay markaas record gareynaya marka hadda imka start oo kale saas oo kale dhahdo start codkaygu hadda codkaygu buu duubaya marka click stop baa leedahay markuu stop aad tiraahdo ayuu wuxuu sameynayaa waxa la yiraahdo zayfin oo aan iska taqaano safe narration as marka waa wave marka dad converteriski baad ku isticmaal kartaa mp3 ka dhigi kartaa kadib baad iyada magac ku qoraysaa goobaad ku save gareynaysaa kadib markaas aad la dhageysan karaa inta are you sure delete aan iska delete gareeyo marka okay marka aan sameeyo hadaba recording-kii baan gelinaa recording-ku waxa weeyaan screen-ka oo la duubo sidaan aanu imika hadda kugu duubayo iyo PowerPoint-ka lagu duubo screen-ka marka lagu duubayo isagu waa aan waxa tagaysaa screen recorder baad tagaysaa screen recorder marka tagto ayaa waxa ku soo baxaya tana ku soo baxaysa hadda waa kan inuu wadno ee socda kadib halkan oo kale halkan waa codka wada laacaysa halkan waa capture-ka waa record weeyaan okay effect-ga ayaad halkan ayaad ka sameynaysaa waxa muhiim ah hadaba circle-kan loo keeno waxa la tagaa setting-kiisa la tagaa kadib markaas aad circle-ka ka soo dooranayso hadda waxaan sameeynaa qaabka aad ugu sameyn lahayd circle-ka waxaad ku baratay oo kaga maarmaysaa waataan ku soo sharaxnay casharkii ka horeeyay marka Camtasia halkan lagu dhex jiro halkan laga soo dhex sameynaya tools halkaas cursor effects okay waa intan wax kala ma PowerPoint-ga muhiimisa loo duubo PowerPoint marka PowerPoint-ga record leenahay PowerPoint-ga ay record leenahay marka okay baa leedahay marka PowerPoint-ga okay saa u siino ayuu wuxuu noo soo furayaa PowerPoint-ga laftigiisa noo soo furayaa PowerPoint-ga markuu noo soo furo ayuu ku dhex duubaynaa cashar cajiib weeyaan ana la jeclaada ardayda inay haday wax fahmaan ay screen recorder ay sameyn karaan waxa jira software fara badan laakiin ka ugu wanaagsan lagu duubaa waa kan weeyaan markaas daraadeed baan ugu talagalay arday inuu barto hadda waa kan waxa taginaa view in taginaa waxaan taginaa cod un baan u baahanahay marka hadda waa kan wuxuu noo soo sameeyay okay add bellen markaas aad leedahay record Camtasia waa halka marka Camtasia doonayso ee soo furato ee halkan soo tagto marka halkan soo tagto halkaas saaki lagu soo siiso ee soo doorato PowerPoint-ka ku soo furo ugu horeysa waxa tagaysaa add baad tagaysaa markaas ayaad record leedahay marka tiraahdo waa ka isagoo PowerPoint-ka ku duubaya markaas uu PowerPoint-ga kugu duubaya okay PowerPoint-ga ayuu noogu duubaya waan sugaynaa okay waa ka imika waad arkaysaa PowerPoint-ga laftigiisa ayuu ku duubaya markaas waxa leedahay click to begin record riix hal mar soo u bilaabo amba F19 baa la isticmaalaa soo u bilaabo iyo pause gareynta marka joojinaysana F10 baa la isticmaalaa okay hadda waxaad ila fahantay qaabka aad Camtasia Studio adigu aad cashar ugu sameyn lahayd walina qaab aan u sameeyno kash qurux badan aad ugu nashqadeyn lahayd halkaas aynu ku joojinaa barashada Camtasia Studio